نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكان هاو قد هصي في مرنا إلهي طاعة دي سيد دقري سما دينين ملك نبي رسولا والله اختباري تضبادي هبلوضو لها مركلي لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي واسكا صبري تضبادي ويلو لها مركلي اسرائيل واسكا صبري داريه تجارتي حوله لها ودن مركلي لغا قاداي واسكا صبري markaas jirkiisa waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nuucaya gaadhay wala jirkii intuu dhamaaday hariga iyo lafahaas ku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo haray xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadka u shaqeyn jirtay aqalada ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaa tahay ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 7 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa marka u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaanay meenu xanuunkiisu inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xaggaa buu uga dhaqaaqay halkaa buu markaa ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idh nada وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه ودواقي وربي جيبه لما ناجوده وقيل دان درتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى سوى قالوا إتابته هذا كنا كون حريص لك وكنا حريص بدن باته إله نبقى إيجا قاد بويري إله مركبه دعاء سوى كأقبله بالليل هل كي وجوجي باللغور اللقطة تروح كودفو اركض برجلك 18 سنة ننجي فيو حنوسنا أود جركيسا ku jirta ee dhulka markuu haraatiye biyo uu kaga keeni kara waa awoodee yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saaraynay lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayna oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheenu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nabi ayuub saa u dhaqaajiyey dhulkuu ku celiyey labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba iloodoo biyaa ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jirkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sano halkaa aan la joogay oo maanta aan ka tegey magaaladaan ugu maqnaayo aan u shaqo tegey miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaaye formigiisii baad leedahay
markaasuu yidhi ayuub aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tegtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culammada weydiiyey boqor afartii nin ee adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayoo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mid a mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidda iyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waatayri fahum yuusacuun xataa idaa atow calaa waadi nnamli qaalat namlatun yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun fatabassama daaxikan min qowlihaa boqortooyaday ilaa halkaa gaadhsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkaygii la maqashiiye war boqor nuucaay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa sulaymaan calayhi salaam cid kale maaha nebi sulaymaan nebigaas mulkiga intaa leeg ilaahay siiyeyna ilaahay daacaddiisu ma dhaafin ilaahay dikrigiisa ma halmaamin hal maalin keliya qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati asaad waxaa la yidhi farduhu aad u jeclaa dabcan fardahana waan jecellahay fii kulli zamana farduhu waa shay qaaliya fardihiisii uu ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo waa gellinka hore iyo gellinka dambe weeyaan waa inuu qofka mu'minku gartaa saacado waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada intoo ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaanno ilaahay la munaajoonno saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey faqaala innii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey wuxuu yidhi fardaha aadi hormariseen waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayey ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buuhi ii soo celiya kurkaan ka wada jarayaaye waxlii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyey nebiyadu qoortay ka goynayeen innaga salaaddaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeennu naga mashquuliyeen dukaanadeenna weli ma bixinay ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaadda galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici kartaa ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanaya uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu yidhi igu soo celiya ii soo celiyey buu yidhi oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buu yidhi ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqii ilaahayna uu ku gutay xaqii bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqii ilaahayna ma dayicin xaqii bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin
waxauna ka baxay adduunka isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka quraanka ilaahay ku sheegay استقامة مركا حال حتى طبقات كستو مسلمين تكمل كل لهي سادين توقو سجنا لها الدليل بلغوها يا دليل هذا بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب